kulaha deegaanka degmada Laascaanood oo hogaaminayo maayirka degmadaasi Cabdixakiin Cali Ismaaciil iyo maayir ku-xigeenka Axmed Kowta ayaa si diiran u soo dhaweeyay howlgallada maalmihii u dambeeyay ciidamada booliska Somaliland iyo xukuumadda Somaliland ay ka wadeen magaalada Laascaanood ee lagaga saaray dadka deegaan ahaan ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya iyagoo si diiran u soo dhaweeyay in xaaladda amniga magaalada Laascaanood la sugo iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa aanu ku taakiidinayna howlgalka dawladda iyo jamhuuriyadda Somaliland ay waday wasiirada noo yimid howlgalkan magaalada laga safanayo cidii aan deegaan ahayn ee kulay sifa kasta ku soo gashay deegaankaas ka soo gashay maadaama degmadii amnigeedii khalkhalay maadaama dilal badan oo qorsheysan ka dhaceen maadaama ay dadku garan waayeen cidii shay iyo cidii aan dileen waa soo dhaweynaa arintaas maadaama ammaanka iyo nabadgelyadu ay ka mid yihiin waxyaalaha horumarka meesha hadii amni ka jirin aan horumarna ka soconayn waxaanu taakiidinaynaa oo aanu bogaadinaynaa howlgalka dawladdu amniga ku sugayso ee ka socda magaalada degmada gaar ahaan gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood talaabo kasto amniga Laascaanood lagu xaqiijinayo waa lagu khasban yahay amniga Laascaanoodna waxa weeye maanta wuxuu marayaa cudur noolba ka gub waana soo dhaweynaynaa talaabo kasto amniga lagu xaqiijinayo annaguna ka gol deegaan ahaan waxaan diyaarin doonaa guddidaas oo ka shaqeyn doonta sidii dadkaas iyo hantidoodii la isu gaarsiin lahaa taas ayaana ugu muhiimsan howlgalkii ay sameysay wafdidii heer qaran ee u timi xasilinta amniga magaalada Laascaanood baan ku taakiidinaynaa haddaan nahay golaha deegaanka ee degmada Laascaanood sidii xildhibaanadii hore u sheegeen waanu taageersanahay wax kasta oo amniga aan u aragno in lagu sugayana waanu soo dhaweynaynaa annagoo ku hadlayna afkii shacabka iyo afkii golaha deegaankaba waxaa shalay ka dhacday magaalada howlgal lagu saarayo dadka aan u dhalan Somaliland ama gobolka Sool oo ah dadka Soomaaliyeed ama u dhashay koonfurta Soomaaliya waxaanu leenahay sida qoladii iga horeysay ay u sheegtay arintaasi waa arin qusaysa amniga wax kasta oo amniga loo arko in lagu xasilinayana waa lagu khasban yahay waxaa dhacday in dad ay ka tagaan hantidoodii iyagoo aan diyaarsanayn la saaray xaalad degdega awgeed waxaanu leenahay cid allaale cidii dadkaas shuraaka la ahayd cidii hanti la lahayd inay ilaahay hantidu ay ka baqaan ay dadka hantidoodii u xaqiijiyaan ay la xiriiraan ay siday hawlba isu aamineen hadeerna aanay u goyn ay wixii ay isku leeyihiin ay u kala qaataan intaa waxaa dheer dadka wali magaalada ku sugan ee magaalada ku dhuumaalaysanaya waxaanu leenahay haddii aydan isu soo dhiibin aydan ciidamada isu soo dhiibin sida qolada kale ku dhacday baad ku dhici doontaa waxaanu idin soo jeedinaynaa inaad isu soo dhiibtaan ciidamada biliiska si aad u diyaar garowdaan Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga telefishinka caalamiga ah